Bismillahirrahmanirrahim waxaana wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo ay joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafic Showka oo caawa leh xiiso gaar ahaaneed wasiirka arrimaha dibadda ee Belgiumka ayaa waxyar ka hor ku dhawaaqay Belgiumka inuu ka codsan doono midowga Yurub in uu joojiyo heshiisyada iskaashi ee kala dhaxeeya Israa'iil iyadoo talaabadan ay ka dhigayso Belgiumka dalkii afraad ee Yurub ee qaata mowqifkan kadib Slovenia, Spain, Ireland sida ay baahisay Reuters. Taliyaha hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad David Barnea ayaa maanta shaaciyay in sargaal sirdoon oo loo yaqaan M lagu dilay dibadda inta uu ku jiray howlgal qarsoodi ah. waxa uu xaqiijiyay in wakiilka door weyn uu ku lahaa howlgallada ka dhanka Iran isla markaana uu hogaamin jiray howlgallo aad u adag oo loo adeegsan jiray habab hal abuur khiyaano xeeladaysan iyo tiknoolajiyad casri ah leh iyadoo shaacintan lagu sheegay in mid dhif iyo naadir ay tahay maadaama ay horay loogu baran Mossad soo bandhigista khasaare gaaray walow aan la shaacinin wax faahfaahin ah sida halka lagu dilay iyo cidda dilka sargaalkan fulisay sida uu wariyay wargeyska Israa'iil ka soo baxa ee Dacood Ahronoth. dhinaca kale warar xiiso leh oo ka soo baxaya Israa'iil ayaa waxaa lagu sheegay in Israa'iil ay ka baqayso waqti xaadirkan in la saaro cunaqabatayn aad u adag. wargeyska Israa'iil ka soo baxay ee Haaretz ayaa maanta baahiyay inay Israa'iil luminayso xulafadii muhiimka u ahayd ee Yurub iyadoo warbixintu ay tilmaantay inay u muuqato Israa'iil inaysan ka badbaadi doonin cunaqabatayn ay saaraan dalalka Yurub. dowladii Iran ahayd iyadana xilligan waxa ay taagan tahay Mareykanka waxa aan gelin doonaa jahannamo ay leeyihiin. Mareykanka ayaa mar hore waxa uu sheegay inuu cadaabta gelin doono Iran ayaa shaaca ka qaaday inay isku diyaarinayso dagaal iyadoo kaliya saacado ay ka dhiman tahay waqtiga dhamaadka xabad joojinta oo aysan jirin wax wafuud oo Iran ay u dirtay Pakistan sabab ay ku sheegtay in uu Mareykanka wato shuruudo ka baxsan xadka caadiga ee wadahadalada oo uu doonayo in ay tahay in uu waqti iibsado oo kaliya si cadaadiska oo hoos ugu dhigo sida ay warisay wakaaladda wararka Iran ee Tasnim News Agency. sargaal ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka oo la hadlay Tasnim News Agency ayaa sidoo kale yiri Iran waxa ay diyaar u tahay inay abuurto xaalad adag oo daran oo jahannamo u eg oo ka dhacda ama ku dhacda Mareykanka iyo Israa'iil ilbiriqsiyada ugu horeeya ee dagaalka cusub haddii uu bilowdo.